wuxuu yiri bad waa inaan helaa buu yiri sidoo kale webiga Nile buu ka hadlay webiga Nile waa la qaybsadaa buu saamigiisa wadan walba soo maray intiisu kala hadhaa buu yiri annaguna saami baanu ka qaadanaa buu yiri kuwa naga dambeeyna saamiye ka sii qaadanayaan hagaag laakiin markii bad la yiraahdo inay badda wadamo iska haystaan annaguna aan saami ku yeelanin ma sii ahaanaysa buu yiri badaan sharci ahaan u lahaan jiray baa jira ilaa iyo haddana wax sharci ah oo naga hortaagan una jirin sharciyana aan u leenahay saxiix aan ku bixinayna ayna jirin oo aan u leenahay hadii aan xeelad koyna aan xoog ku helayno meel kasto oo warshad iyo kaaba dhaqaale lahaydna waa la gubay Eritreanku waxay u qabeen cala gaadhay waxayna ogaayeen dagaal kasto iyaga iyo Ethiopia dhaxmaray inay Tigreegu mas'uul ka ahaayeen oo TPLF wadanka xukumaysay qolada khilaafka la isku hayay dhulka maxaan ku dhahay baadhima iyo dhulka xadka la leeyahay inay ahaayeen Tigreega qolada kaliya ee ahayd libaaxa bakaylaha hogaaminaya Ethiopia ku hagaysayna inay ahayd Tigreega Eritrea iyadoo taa ogsoon oo ka baxsan baa waxay gumaad iyo la dhihi karin u geysatay shacabkii Tigreega ahaa abiya maanta marka taaqiray oo baarlamaankii ka hor qiray oo qodob u sheegay qaabka ay u soo duuleen qaabka ay u xasuuqeen qaabka hatta anagu ma aanan ka baxdhihi karin buu yiri ma aanan la dagaalami karin buu waayo Tigreeg baan la dagaalamayna Eritrea dagaalkeeda ma isku furaynin buu waan u daynay waanu indhahan ka dhowray ilaa iyo ay iska fahmi waayeen Eritrea iyo abiye salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soo dhawaada daawadayaal magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Axmed halka adiga daawanaysan waa SNN TV waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago xogta ama qodobada ay ka koobnaayeen khudbadii shalay uu baarlamaanka federaalka Ethiopia ka horjeediyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo dhanan badan ama dhinacyo badan taabanaysay dhowr qodob ilaa 3 qodob oo kamid ahna aan rabaa barinaan dul istaagno oo uu aad ugu nuxnuxsaday kuwaasi oo aan ka dhaxaragnay xaaladda maanta taagan inay la jaan qaadayaan soo dhawaada daawadayaal wuxuu ra'iisul wasaaraha Ethiopia aad ugu dheeraaday ka hadalka ama garnaqsi wax u muuqday oo uu ku furfurayay ku faahfaahinayay isagii Eritrea wixii soo dhaxmaray iyo khilaafkii ama dagaalkii xooganaaye waqooyiga dalkaasi gobolka Tigreega ku dhaxmaray qowmiyadda Tigreega iyo ciidamada federaalka Ethiopia kaasi oo ay qayb ka ahayd Eritrea doorkii ay ku lahayd iyadana aad u faahfaahiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxa uu sheegay xilligii Tigreegu uu dalka ku soo duulay ama ciidamada qaranka uu xagal daaciyay ee uu dhabar jabiyay buu yiri weerarkana ku qaadeen waxaana caawinaysay oo nala shaqeynaysay Eritrea waxayna naga garab waday xasuuq ka dhan ah dad Ethiopian ah ama shacab Ethiopian ah waxay sidoo kale naga garab waday buu yiri burburin iyo boob hantiyeed oo ay u geysanaysay taasi oo markii hore dagaalku uu socdayba ay qowmiyadda Tigreegu sheegaysay inay isirbaabin wado laakiin abiya uu dafirayay oo uu lahaa wax muuqaaladiisina lahayo oo uu lahaa wax dhacay ma jiro waxay Eritrea samaysay ma jirto Eritrean meesha kuma jiraan iyadoo la sheegay xataa ciidamada Soomaali inay qayb ka ahaayeen dagaalkaasi isaga hagaag abiya wuxuu yiri waxaanu soo galay magaalada Adigrat waxay galeen hantidii dadweynaha waxay boobeen warshadihii waxay xasuuqeen dadkii shacabka ahaa waxay burburiyeen qaybtii ay qaadan kari waayeen warshadaha sidoo kale ilaa maqala intaanu sii soconay ee xagga ka soo soconay iyaguna way soo socdeen waana burburinayeen waana boobayeen horaan waxaad in badan nooga maqasheen Eritrea in ay dagaal abadi ah dagaalku waa dagaal toos ah markaa socda iyo dagaal abadi ah oo markii dagaalkani dhamaado eel dambe reebi doona dagaal abadi ah inay qowmiyadda Tigreega la gashay kaasoo aan ku tilmaanay talaal xataa xanuunada dilaaga ah in lagu talaalay shacabkooda askar positive oo qabta xanuunka dilaaga HIV-ga inay maxaan ku dhahay la keenay oo Eritrea laga soo ururiyay iyo dad maxaan ku dhahay xanuunadaas qaba inay kufsi baahsan iyo galmo u geysanayeen dumarka Tigreega ah oo si ay u talaalmaan ragga Tigreega inay u tilmaamaan dadku talab u dhintaan waxaa la boobay hantidoodii maguuraanka ahayd waxaa la boobay meel kasto ila dhaqaale ay ka soo galayeen meel kasto oo warshad iyo kaaba dhaqaale lahaydna waa la gubay Eritreanku waxay u qabeen cala gaadhay waxayna ogaayeen dagaal kasto iyaga iyo Ethiopia dhaxmaray inay Tigreegu mas'uul ka ahaayeen oo TPLF wadanka xukumaysay qolada khilaafka la isku hayay dhulka maxaan ku dhahay baadhima iyo dhulka xadka la leeyahay inay ahaayeen Tigreega qolada kaliya ee ahayd libaaxa bakaylaha hogaaminaya Ethiopia ku hagaysayna inay ahayd Tigreega Eritrea iyadoo taa ogsoon oo ka baxsan baa waxay
gumaad iyo la dhihi karin u geysatay shacabkii Tigreega ahaa. Abiy maanta marka taaqiray oo baarlamaankii ka hor qiray oo qodob u sheegay qaabka ay u soo duuleen, qaabka ay u xasuuqeen, qaabka xataa anagu ma aanan ka bax dhihi karin buu yiri. Ma aanan dhihi karin buu yiri, ma aanan la dagaalami karin buu. Waayo Tigreey baan la dagaalamayna, Eritrea dagaalkeeda ma isku furaynin buu. Waan u daynay, waan indhahan ka dhowray ilaa iyo ay iska fahmi waayeen Eritrea iyo Abiy xilligii ay Pretoria ku heshiiyeen Tigreega. Arrintaas uu hadda cadaynayo Abiy Ahmed yaa waxay ku tahay dhabar jab weyn markii loo eego siyaasadiisa iyo hadaladii hore uu sheegayay iyo waliba qaanuunada wadanka kala haga ee qoomiyadaha iyo federaalku ay ku midaysan yihiin. Tigreega iyo maxaan ku dhahaayay Eritrea dagaalkeedii haddii aan intaasi kaga soo tago, Abiy Ahmed wuxuu yiri wuxuu iyadana ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Eritrea Axmaarada iyo qoomiyada leedahay Tigreega. Dhulal bay kala haystaan, way isdagaalamayaan, wuxuu yiri wax dhul ahoo xoog lagu kala haysan karay ma jiro, wax dhul ahoo la iska sheegan karayna ma jirto. Dhulka la kala haysta sida aan ognahay waxa degan oo iska leh dad Axmaar ah. Maamul ahaan wuxuu ka tirsan yahay Tigreega. Haddana waxa si dastuurkuna wuxuu u ogol yahay Tigreega. Haddana si xooga waxa ku qabsatay Axmaaro. Maadaama oo qoladii lahayd ay xoog ku haysato Tigreegii deganaaya intii TPLF ay xukuntayna laga barakiciyayna ay ka maqan yihiin ay Axmaara degan tahay. Abiy Ahmed Cali oo Axmaarada u heelinaya wuxuu yiri waa in afti la qaadaa. cid iska sheegan karto afka baarkiisa ka oran karta waxa iyo waxaasanu leenahay gobolka iyo gobolkaasaanu leenahay ma jirto. Waa in afti la qaadaa buu yiri. Baarlamaankuna ku horiyay haddii afti la qaadana la soco meelo badan bay aftidu ka dhici. Dhulka inaga iyo Oromo isku hayna ka Soomaali ahaan oo baabili ugu horeyso oo Gursum ugu horeyso oo Jilicsan ugu horeyso oo dhulka ilaa iyo Tulugule shishadeedo dhan ka kooban iyo dhulka maxaan ku dhahay Cafar aan isku hayno aftidu way bilaaban. Haddii afti la yiraahdo oo meel afti laga furo isaga Oromo ahaan bay u daran tahay iyo maxaan ku dhahay nidaamkiisa oo dhan. Bal wakaas intii sanduuq la dhigo aftiha loo dhigo Axmaari iyo Tigreey kuwana way furmi waxay noqonaysaa tusbax furmay taasina inaga dani noo tahay. Laakiin isagoo Tigreey ku xumeynaya wuxuu yiri ma dhici karto mana yeelayno inay qoomiyadi meel iska sheegato. Isagoo taala xidhiidhiyay wuxuu yiri ma suuroobaysa buu yiri dadka raba buu yiri qoomiyadaha yar ee raba buu yiri in wadanka Ethiopia uu noqdo maamulo kala go'an oo dawladda federaalka ay u gudgudbi karin ma dhacaysa buu yiri. Taas oo muujinaysa in uu dagaalka ma dambaysa ku qaadayo. waxaana dhawaan maalmo dhaweyd dhacay dagaalada qiimo daroon oo aad u baahsan oo ka dhacay gobolka Tigreega. Jabhada TPLF ee Debrecen hogaamiyo ciidamadooda TDF kala dhaho oo dabcan meel isku urursanayay kayd kolonyo oo hub iyo saanad iyo maxaan ku dhahaayay saad cunto ah u wada yaa waxa daakum ka dhigay ciidamada federaalka daroonkoodii oo burburiyay. Taas iyo hadalkan Abiy ah gobolku ma kala xidhnaanayo wadanku ma kala xidhnaanayo waxa dareemi kartaa in toos dagaal ugu baaqayo oo dagaal uu iclaaminayo ama uu kii socdayba sheegayo uu xaqiijinayo. Waxaana ku hanjabay wadamada dabada ka riixaya ku daba dhuumanaya arinta iyada ah inaan dareensanahay. hagaag qodobka saddexaad ee ugu dambeeyay aan ku soo koobayo Abiy uu ku nuxnuxsaday wuxuu ahaa midkii badda. Horey baan uga maqalay inuu bad ka hadlo inay bad muqaddas tahay inay kan tahay laakiin maanta luqad kale ku daray. Wuxuu yiri wadamada nagu xeeran oo dhan ee badaha leh 20 milyan ma gaadhayaan. waana runtii oo wadamo fara badan oo 20 milyan gaadhaynin oo ay Eritrea ugu horeyso oo ay Djibouti kan tahay oo ay kan tahay ilaa iyo ku soco yaa badale badaha waliba ugu waaweyn leh. hagaag wadankayga oo 120 milyan ah inaan bad la'aan ahaado cadaaladda bini aadamka meel la kaga qornooyn suurtagal ma aha. yani xeer iyo xoog midna la igama haysan karo ilaahay. xeer iyo xoog midna la igama haysan karo ilaahay. sababtoo wadankayga oo 120 milyan ah in 20 milyan wax ka yar ay badihii haystaan aniguna aan laan loo ku jiro suurtagal ma noqonaysa weli. waa hanjabaad iyo maxaan ku dhahay erebixin cusub iyo ilama bixin iyo qiil raadsasho iyo qiil samaysasho. wuxuu yiri bad waa inaan helaa buu yiri. sidoo kale webiga Nile buu ka hadlay. webiga Nile waa la qaybsadaa buu saamigiisa wadan walba soo maray intiisu kala hadhaa buu yiri. annaguna saami baanu ka qaadanaa buu yiri. kuwa naga dambeeyna saamiye ka sii qaadanayaan. hagaag laakiin
markii bad la yiraahdo inay badda wadamo iska haystaan annaguna aan saami ku yeelanin ma sii ahaanaysa buu yiri badaan sharci ahaan lahaan jiray baa jira ilaa iyo haddana wax sharci ah oo naga hortaagan una jirin sharciyana aan u leenahay saxiix aan ku bixinayna ayna jirin oo aan u leenahay hadii aan xeelad ku ina aan xoog ku helayno ereygaasi waa uu cadiyahay ereygiisaasi waa uu cadiyahay marka Abiy Ahmed khudbadiisu way dheerayd arrimaha guduhu ka hadlay ganacsigu ka hadlay musuqu ka hadlay siyaasaddu ka hadlay waxyaabo farax badan buu ka hadlay oo dhinac walba taabanaysa laakiin saddexda qodob oo muhiim inay u tahay Soomaalida inay dhagahooda maqlaan aan aaminsanahay oo xidhiidha gobolka waqooyiga aftida isjiijiidka qoomiyadaha kala haysta dhulalka oo aan inagu ugu badannahay iyo badda oo kuwii badaha laga rabay ee badda lagu tuhmay aan inagu nahay yaan idin soo xulay markale magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Axmed halkaad iga daawanaysaa waa SNN TV fadlan fogay muuqaalka like iyo share-tu waa noo muhiim waxay gaarsiinaysaa kuwa uunan hadda gaarin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh